Bismillahirrahmanirrahiim. Halkan waa Ogbaad Health Cooking. Maanta halkaas waxaa noo yaala moos iyo digsi yara. Marka wixii aan ku samaysan lahayn baan rabnaa bal inaan idiin sheegno. Is idin dhaafine subscribe iyo like iyo share iyo si aad u heshaan fiidiyoda soo socdana gambaleelka maaragtay hal mar saa u riixa insha Allah hadii lahayn. Marka maanta waxaan sameynaynaa mooskaas aad u jeedaan. Mooskan aad u jeedaan waxaan ka rabnaa maanta qolofta bes baan ka rabnaa. Mooskan ma rabno laakiin qolofta rabnaa maanta. Maxaan ku sameynaynaa marka? Waxaan ku sameynaynaa hurdo la'aanta dadka ay ku dhacdo. Weligaa hurdo la'aan ma aragti. Waxaa la rabaa marka qofku inay dadku waxaa la rabaa marka inay wax nature ah ama daawooyinka kan oo maxaan ku radaa badan oo la cunayo hurdada qofka markii uu waayo in iska daayaan oo qofka mar hadduu aad u xanuunsanayn oo hurdo uu rabo inuu waxyaalo nature waxaa la rabaa uu maxaan ku radaa uu habeenka ku seexdo haddii hurdada ka yaraato ama dadka wax akhriya ama qof daalay oo kale ama qof dhalinyarada kale markay aad wax u akhriyaan ama qof xooga stress iyo xooga isku buuqay waxaa la rabaa inuu hurdo oo nature u helo. Hurdadaasna maxaa laga rabaa waa inuusan kaniiniyaal uusan cunin. Kaniiniyaashaas marka dadka side effective u sii geynayaan iyo waxyaalo fara badan. Mooskan marka maanta ma rabno mooska kan. Umad kale ha cunto dadka cunaya insha Allah. Laakiin qolofta anaga rabnaa maanta qoloftan ka sheekeynaynaa. Marka qolofta tan Ilaahay wuxuu ku duugay marka waxyaalihii mucjisadaha idin sheegi jiray oo adduunkiisa iyo koonkiisa iyo qudaarihiisa iyo geedihiisa ka buuxa baa ka buuxa. Cilmi baaris la sameeyay marka waxaa la yiri wuu ka fiican yahay kaniiniyaasha hurdada loo qaato mooska qoloftiisa. Waa la ogyahay moosku waa kharaar lama cuni karo. Dadku kharaar buu u yahay. Laakiin dalal badan baa isticmaala sababtoo ah faa'iidooyinka ku jira baa la ogyahay. Waxaa la yiri mooska la cunayo waxaa ka faa'iido badan oo ka fitamiino badan qoloftiisa. Shay kastana saas u badan tahay. Qoloftiisa ka faa'iido badan. Hadda hindidoo kale way cunaanba way dubtaan way shiishaan way waxyaalo fara badan qaab badan bay u sameeyaan marka oo la cuno. Hadda dadka qaar baa xataa salarada korkooda ku darsada dad baa markay salar ku darsadaan wax yar oo khal ku darsada ilkaha wuu cadeeyaa ilkaha laftarkooda wuu cadeeyaa bahalka kan hadaad ku xoqdid ilkaha dabar kale iyo ilkaha wasaqda ilkaha gadguduudka wuu cadeeyaa. Marka anaga maanta hurdada u dan leenahay halkan waxa noogu jira 2 koob oo biyo ah. Digsiga yarka waxaan ku soo shubtay 2 koob oo biyo ah baan ku soo shubtay 2 koob oo biyaha iyo 2 qolof oo moos ah. Waa koobka shaaha lagu cabo weeye wax kale ma ahan. Labadan marka qolofta tan waxaan sameynayaa marka halkaan ku ridanayaa meeshaan ku ridayaa. Meeshaan ku ridanayaa markaan meeshaan ku rito dabkan saaraya. Markaan dabka saaro marka 10 daqiiqo aan u deynayaa. 10kaas daqiiqo meeshaas waxa iga soo baxaya marka shaah la yiraahdo shaaha mooska iga soo baxaya markaas insha Allah hadii la haydno. Meeshaan waxa igu jirta qorfe dhalaanada yarta baan ku darayaa. Qaadadaasaan ku darayaa hadii alla idmo. Qorfaha laftarkiisu waxyaalaha waxa weeyaan aad u caafimaadka badan leh oo healthiga ah weeye. Hadda ka hor baan ka soo hadlay kanaalku ka buuxaa. Marka halka kan baan marka ka hadlayaa marka adiga aad seexanaysid xilliga oo sariirta marka tigis qofku seexanayo buu koob ka shubanayaa dhag buu isku siinaa halkiisa koob ku seexanayaa oo adigu qandaca ka badan ma fiicna. Haddii aad xataa hal xabo moos ah iyo waxa kugu filan iyo hal koob biyo ah laakiin hadda labaan ka dhigay dhimala qof kale ila cabay hadii la haydno. Maxaa marka faa'iidooyinkiisa maxay yihiin marka horta waxyaalaha mineralka la yiraahdo oo qudaaraha dhan ku jira baa ku jira. Waxa kale oo ku jira nutrition aad u fara badan waxyaalaha nafaqada iyo nutritionada laga helo qudaaraha kale wuuba kaga badan yahayba. Marka vitamin C baa ku jira baa la yiri bay dhahan culimada baartay oo immune-ka iyo qofka selalkiisa iyo wixiisa repair gareeya 17% baa ku jira la yiri waa wax yaab leh. Waxa kale oo ku jira fiber-kan adiga waxa cunooyinka qolofta laga helo oo caloosha iyo maxaan ku radaa afka ilaa dabada waxa la yiraahdaa systemka cunada la dhahaa ama digestive system baa la dhahaa intaas oo dhan hagaajiya baa ku jira. Maxaan ku iraahdaa waxa kale oo ku jira vitamin B6 oo energy iyo ability qofka awooda inuu qofka awood yeesho ama energy yeesho ama wax maxaan ku radaa oo cudurada iska celin karo baa ku jirta mooskan qoloftiisa waa wax yaab leh. Waxa kale oo ku jira potassium
potassiumkaas boqolkiiba 12 baa ku jira baa la yiri waxaa kaloo ku jirta boqolkiiba waxa la yiraahdaa 18 oo magnesium baa ku jirta marka qofka hadduu xataa blood pressure qabo iyo sokorta levelkeeda wuu xadidi ayadana wuxuu ka dhigaa normal buu ka dhigayaa qaab siman buu ka dhigayaa daadso qofku uu helayaa hurdo ku filan uu helayaa waxaa kaloo kamid ah vitamin B6 iyo B2 alifka waxa aad uga buuxa meel kasto vitamin B2 alif iyo B6 ku jiraan magnesium lagama waayo iyo potassium daadso qofku marka uu helayaa hurdo ku filan uu helayaa qofka hadii korkiisa ay magnesium ku yar tahay lagama yaabo inuu hurdo helo ama vitaminadaas ay ka maqan yihiin magnesium tu badan tahay waxay dhahaan mooskan waa wax magic ah ama sixir bay dhahaan dadka dalalka qaarkood ama culimooyinka baaray maqaarkiisa mooska kan isaga ku dhex jira oo mooska hadda aan ka fiiqay waxa ka sii faa'iido badan bay leeyihiin culimada baartay qolofta ka faa'iido badan bay leeyihiin marka ilaahay baa ugu talagalay dadkiisa marka haddii qofku uu balance diet uusan haysan oo balance diet-kii uu cunadii ka khaldan tahay ama ha waayo ama isagu maaragtay ha isku samaysan waayo dadka isku buuqsanata idin sheegayay dadka daawooyinka cuna sida tan ilmaha la isaga ilaaliyo bath controlka la yiraahdo biliska iyo qofka daawooyinka cuna dhiikarka iyo qofka dadka cuna daawooyinka gaaska anti acidka daraagiska kulligood waxay hoos u dhigaan magnesiumka qofka jirkiisa ku jirta bay hoos u dhigaan markay qofka magnesiumkiisa hoos u dhigaan si kastaba ku keento ama adigu cuno xun ama isku buuqsano ama daawooyinkaas cun qofku wuxuu waayayaa marka hurdadii normalka ahayd buu waayayaa hormooniskii soo deyn jiray hurdada ilaahay ugu talagalay baa magnesiumta baa difaac siisa way waayayaan markii la waayo maxaa dhacaya marka hurdadii baa yaraanaysa qofku markuu sariirtiisa tago buu koobkiisaas cabayaa hurdadii baa u imaanaysa badanaa dhakhaatiirtuna waxay dhahaan hurdada hormoonka loogu talagalay ilaahay qofka inuu ku seexo ugu talagalay mugdigu ku yimaadaa marka qofku inuu indhaha wax madow iska saaro ama mugdiga layrka gaabsado ama guri mugdiga galo dadka hurdada ay ku yartaan hore u imaan weeye ama qofka markaas oo kale madaxa laga ama isku buuqsan weeye marka wax yaab la weeye ha cunina daawooyinka hurdada loo isticmaalo ama antidepressionka ama kuwa hurdooyinka ay dhakhaatiirtu soo qoraan isku daya qudaaraha ilaahay sameeyay qorfahan laftirkiisa hadda ka hor baan kasoo sheekeeyey antibacteria antifungal weeye waxyaalahaas oo dhan buu isaguna ka hortagaa ka fiiriya channelka Ugbaad Healthy dib ugu noqda marka dabkan soo saarayaa 10 daqiiqo bas baan soo karinaya insha Allah markaas soo noqonayna 10 daqiiqo aan soo karinayna waa noo soo dhamaatay waa kana shaah bay u ekaatay insha Allah tabarakallah qurux badan waliba koobkan biyaha ku miisay koobka shaaha ay kan isku mid koob kasta oo aad haysatid weeye oo shaah lagu cabo waa isku qiyaas koobka 250 to 50 ml weeye koob kasta waa kana maanta marka shaaheeni aan soo karsanay waa kana halkan waa qoloftii mooska aan soo kariyay weeye iyadan halkan aan dhigay si loo arko halkan waa qorfe sidii qoryo ah qorfeena inta yartan kaga darsanaan waa kana isagana halkan noogu jira wax yar qaadadaas waataan ka isticmaalna qaado yar way aad u yar weeye koobkeena shaaha waa kaasa marka waxaa la dhahaa tea of banana ama shaaha waxaa la dhahaa mooska marka sidaas aan u sameysanaynaa waxyaalaha maaragtay organic ah oo maskaxda iyo jirkaba u baahan yihiin halkan dadka qaar baa waxay ku darsadaan malab hadaa ku darsato tarkiisu isaguna waa wax fiican oo maaragtay hurdada ka qayb qaata malabka iyo sokorta waa optional weeye ama qofkii u baahan baa ku darsan kara hadii qofkii dhalinyarada markaas kharaarka waxa nacaya wuu ku darsan karaa laakiin sidaana fiican qofkii doona wax yar oo sokor ku darsanaya oo marka u baahan kaan rabina sidaas ku cabiya sidaas health badan caafimaad badan waa kaasa halkan waa Ugbaad Healthy Cooking kalana socda waxyaalo kasta oo muhiim ah asxaabtayda soo dhawaada assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh